جاهزين يا رجاله؟ waa cutub militari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Masar waana cutub ka tirsan cutubyada gaarka ah ee ugu awoodda badan gudaha dalka Masar waana cutub loo diyaariyay jag ahaan iyo maskax ahaanba kuwaas oo la siiyay tababar aad u khaas ah kala duwan kuwa la siiyay laamaha kale ee ciidamada dowladda Masar waana cutub ku takhasusay howlgallada aad ku xasaasi ah kana dambeeya khadadka cadowga waqtiyada nabadda iyo dagaalka waxayna ka weyihiin kana balaariyeen qaybta kale ee lagu magacaabo cutubka 77 ama cutubka 777 waa cutub militari oo la dagaalama ciidamada argixisada caalamiga ah kana tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar waxaa jira shaqooyin gaar ah oo hoos yimaada shaqooyinkooda ahna kuwa qarsoon waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan uguna caasan cutubyada gaarka ah ee ciidanka dowladda Masar cutubkan oo loogu magac daray 999 ayaa howlgal soo cagalishaha ka sameeyay magaalada Darna ahna magaalo buuraley ah kuna taalo waqooyi bari ee dalka Liibiya intii lagu guda jiray howlgalkii militari ee dowladda Masar ee ka dhanka ah ISIS kadib markii la gowracay 22 qof oo dhammaantood ahaayeen kuwa dhalashaan ka soo jeeda dalka Masar kuna sugnaa dalka Liibiya sida laga soo xigtay goobjoogayaal ku sugnaa magaalada Darna waxay sheegeen inay arkeen ciidan ku labisan qalab iyo dhar tayeysan balse aan wajiyadooda haba yaraatee aan waxba laga garan karin halka ay ka soo jeedaan iyo cidda ay yihiinba balse kaliya la arkay garabooda oo ku dhajisan calanka dalka Masar waxaana la aaminsanaa inay ahaayeen cutubka 999 inkastoo ciidankani ay yihiin ciidan dhinac walba ka dhisan haddana waa ciidan ay adag tahay in warbixin laga helo ama sida ay u shaqeeyaan iyo meelaha ay ka howlgalaan